باكرون ننت إلى الدين مدقة كلمة والقدمة إيمانك القدقاء إلهي هايدن داية تدكيغا وحان الشيء دقال شيء دور معها دلada haweenkan daarin baynu nahay haddana odayaasha ka dambeeya baynu nahay nabadda waa naas la noogo naroora badan nimcada eebbahayna seeyaan ku mahadinaa munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay maalinta loo asteeyay in la xuso nabadda adduunka ayna qaramada midoobay aqoonsatay sanadkii 1982 ayaa maanta ka qabsoontay magaalada Kismaayo iyadoona dabaaldegan ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland oo kaashanaysay dalada nabadeynta haweenka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada socod lagu soo maray wadooyinka magaalada Kismaayo kadib ayaa munaasabada oo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiiro xildhibaano mas'uuliyiin kale iyo ururada bulshada rayidka waxa ugu horeyn madasha ka hadashay afayeenka dalada nabadeynta haweenka degmada Kismaayo Cadar Ismaaciil Juraata iyo madaxa hay'adda midnimada haweenka Soomaaliyeed Xaliimo Faarax Godane waxaana ay sheegeen in haweenku ay kaalinta koobaad kaga jiraan dhinaca nabadda maanta maadaama ay tahay maalintii nabadda adduunka waxa halkan jooga mudana madaxweyne iyo wasiir iyo xildhibaanayaal halkan waxa jooga gabdhihii dalada nabadeynta degmada Kismaayo ee iska lahaa barnaamijkan sida qaaska ah uu quseeyo ayaa meeshan maanta fadhiya oo ka kooban 180 gabdhood oo loo soo tababaray sida ay nabadda uga shaqeyn lahaayeen sida isku xirka bulshada iyo maxay ahayd ay dhibaatada ka dhax jirtay degmada Kismaayo ay u xallin lahaayeen u taagna ayaa maanta meeshan fadhiya maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalinta nabadda waxaan jeclaysanay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay nabadda ka shaqeeyaan nabad baa naas la nuuga leh hadday nabadi jirin waxbarasho lama aadayo hadday nabadi jirin dhakhtar lama helayo hadday nabadi jirin biyo lama helayo hadday nabadi jirin horumar lama helayo beerihii lama tabcanayo xoolihii lama dhaqanayo annagu dalkeena waa dal barwaaqo ah maalinta nabadda adduunka loo asteeyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ay ka soo qayb qaateen ilaa 200 oo haween ah oo ku labisan dharkii cadda ee nabadda taas waxay ku tusaysaa sida haweenku ay u jecel yihiin nabadda annaga haddaan nahay SWSO mar walba waxaan u taaganahay in ay Soomaaliya nabad noqoto oo visionka anaga uu yahay in Soomaaliya ay nabad noqoto in dawlad buuxda aan helno in maxay ahayday laga qayb qaato nabadda deegaanka sidaa darteed waxaan boorinayaa sida maanta dhacday oo kale toole ee haweenka uga qayb qaateen maalinta nabadda inay uga qayb qaataan qabashadeeda run ahaantii magaalada Kismaayo waa magaalo ay ka dhisan tahay platform ama dalad aan ka sameynay ka shaqeysan nabadda waxay astaan u tahay in nabaddu ay ka bilaabato qoyska gurigana ay aasaas u tahay hooyada wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruuz ayaa madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ku soo dhaweeyay hadalka waxaana uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay in nabaddu ay saaxiibo badan u geeriyoodeen sidii loo heli lahaa umaanan istaageen inaan khudbeeyo kaliya waxaan rabaa inaan mahadcelin dadka ka qayb qaatay xafladan quruxda badan sida u soo agaasimeen mahadcelinaan rabaa inaan u mahadceliyo waa ku mahadsantii waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo xafladda gabagabo marayso madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Siid Aadan madaxweyne soo dhawo maanta waa maalin qiimo badan waa maalintii nabadda adduunka loo asteeyay 21ka bisha 9 waxay ku soo aaday maalinta asbuuca ugu qiimaha badan oo la yiraahdo qalbul asbuuc oo maalin jimco ah waxa xafladda ay ku saabsan tahay oo daaran tahayna waa nabad weeye macnaheedu waxa weeye wax kasto nolol ah waxa saldhig u ah nabadda haddaba nabadda ka shaqeyn noloshaada walaac iyo khalkhal iyo deganaansho la'aan baad ku dhamaysanaysaa nabaddii yaa diidan weeye marka nabaddii waxaa diidan
kuwa ilaahay adduunkana ku sharfin aakharana aan janno ku helaynin baadiidan qofka bani aadamka oo fikiro oo yiraahdo adduunkana maxaa ku wanaagsan inaad ku noolaato aakharana aad u shaqaysato nabad ayuu xajinayaa ninkii intaa hilmaansan ayaa nabadda qaadaya maalmihii la soo dhaafay ciidamada Jubbaland oo nabadda u taagnaa dagaallo xoog leh qabsaday gobolka Gedo iyo Jubbada Hoosaba rag aad iyo aad u qiimo badan baa ku baxay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo ragga waxay u dhinteen inaan annaga nabad ku noolaano ku saaxano aan ku soo toosno maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo